kulanti wacan wanaagsan daawada ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo la filayo in maalmaha soo socda uu safar dalka dibadiisa u anbaxo gaar ahaan wadanka Itoobiya halkaas uu kulan kula qaadan doono wasaaraha dalkaas Itoobiya Abiy Ahmed xogo macluumaad arrintaas ku saabsan ee daawan doontaan qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga dib loogu soo celin doono dalka ciidamadii Eritrea ku maqan ee tababarka halkaas loo geeyay siyaasi Afwerki oo shuruudo adag ku xiray soo celinta iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo shuruudahaasi mid kamid ah fuliyay haddaba waa daawan doontaan waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa howlgaladii ku wajahnaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo fashilmay iyo isku dhacyo soo kala dhex galay mas'uuliyiinta dagaalada hogaaminaysa taliyaha ciidanka xoogga iyo mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya isku dhacaasi howlgalka fashilmay iyo wax ka dambeeya daawan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona al-shabaab waxaa markaasi laga gubay gaadiid dagaal oo ay lahaayeen waa la soo bandhigay oo ciidamada ayaa faafiyay qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale caalamka diblomaasiyadda oo qayb ka ah wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay arrimaha ku saabsan tiiroosaadka xukuumaddiisa dan qaranna fadlan marka hore haddaad noqoto subscribe-ka saar gambalka furo oo si shirkadey saaxiibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like noo reebiya aad baad u mahadsantiin aan ku bilaawno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la filayay in dhamaadka bishan safar uu ku aado dalka Itoobiya sida ay ilwareedo lagu kalsoon yahay xaqiijina safarka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ku tago dalka Itoobiya tan markii dib loo doortay 15 May xasan ayaa hore u booqday dhammaan dalalka dariska ah Soomaaliya sida Djibouti, Kenya iyo Eritrea hase yeeshee Itoobiya ayaa ku gacan saartay kadib markii wasaaraha dalkaas Itoobiya Abiy Ahmed uu ka carooday hanaanka maamul madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu waramayaa inay hadda ay ku sugayeen magaalada Addis Ababa iyo markaas u dhacwa safarka madaxweynaha Soomaaliya sida aan xogta ku helnay ujeedada safarka ayaa ah inay isku soo dhawaanayaan labada dowladood oo xiriirkooda mugdi ku jiray tan markii dib loo doortay Xasan Sheikh Maxamuud oo meesha ka baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xulufo ahayeen wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed مسؤولين كتير لبض الدولة أيها تتواجد إلى صوت وحاء السعودي وضحلوا السعودية وكوا هذا حوجين تحريرك يودي أنت عقد الله في الإيه إن يسكر عن حسن شيخ يابي مرك أي كل مان مجالات تسوى حدود تحريرك قبو لبض ودن أيها ولا سبك قبته جسور وأشياء مقدسية قاهرة مصر يا اسكودي سين سومالي ودكستو إنك قرب كان قطو على كمان كاسر صار يوتيوب وبيحرين كسم يسي وبيج النايل وهاليس ملايين غير مسرع وبيج اسمر كاسكية يا بيها يستعملانا انتو سعودي كلهم كيم دحوين حسن شيخ محمود يمدحونا دلك مصر عبد الفتاح السيسي جولاي قاهرة كدعي ايا وحا اي شيكتي إني مركز اسكورا عين نلعب باريب وحنت بيحرينك إذا مركز هنشيس لوغهين او فيلا سومالينا اي مركي دنبب بينيسيا دولة لوان تلفزيون كا اي تي في دولة دلكاس إثيوبيا laga sii daayay barnaamij si aad loogu warmay madaxweynaha Xasan Sheikh Maxamuud ka ku saabsanaa in markaasi arrimaha Soomaaliya iyo Kenya iyo markaasi Itoobiya xiriirka wanaagsan barnaamijkaas ayaa waxa markii dambe ka daba timid wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo qaar ay soo saartay u sheegtay in barnaamijkaas uusan matalin siyaasadda dowladda Itoobiya isla markaana uusan waafaqsaneyn xiriirka labada dal falanqeeyaasha siyaasadda ayaa barnaamijka ku macneeyay fariin ay Addis Ababa u soo dirtay Muqdisho sababtoo ah baalida telefishinka dowladda Itoobiya kama bixi karo barnaamij aysan dowladda raali ka ahayn qabiil hore ayaa daawanaysan channelkeena fadlan haddii aad nagu subscribe noo saara dhinaca kale waxaa fashil ku soo dhamaaday howlgal la qorsheynayay in lagu qado degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas waxaa markaasi laga soo sheegayaa in isku dhacyo iyo sidoo kaleente kala shak weyn oo soo kala galay ciidamada markaasi iyo mas'uuliyiinta dowladda ee howlgalkaasi hogaaminaysa Ceelbuur maadaama ay kala soo sheegay in qaar kamid ah madaxdii howlgalka qaybteed ay isku dhaceen sida aan xogta ku helnay waxaa fashilmay howlgalkii lagu xureen lahaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kadib markii khilaaf culus uu soo kala galay hanaanka loo weerarayo deegaanka Ceel helay oo dhaca inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Ceelbuur dhammaan ciidankii duulaanka qaaday imaamii la soo dhaafay ka gubay deegaanadaas Deeqo iyo Labadulle gankii hore maanta al-shabaab ku hareeriyay deegaanka Ceel helay ayaa markaasi ku laabtay magaalada Dhuusamareeb sababtoo howlgalkaas u fashilmay waa khilaaf soo kala galay beelay labada mas'uul ciidanka hogaaminaysa oo kala taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odo Yusuf Raagi iyo xildhibaan Yusuf Dhagi Ogaas oo ka soo jeeda degmada Ceelbuur General Odo ayaa la sheegay inuu markaas soo jeeday in al-shabaab lagu duqeeyo deegaanka Ceel helay kadib markii diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo qayb ka ah howlgalka ay arkeen goob ku taala gudaha deegaanka oo xubno badan oo shabaab ah oo markaasi difaac ugu jireen aseeshee xildhibaan Dhagi Ogaas ayaa diiday in la duqeeyo magaalada
isagoo taas bedelkeeda soo jiiday in si toosa loo weeraro kooxda si loo yareeyo khatarta soo gaari karta shacabka oo al-shabaab markaasi u diideen inay qaxaan oo iskaga cararaan deegaanka. intaas kadib waxaa la sheegay in jenaraal Odway uu amray ciidamada xoogga dalka oo lahaa xuduudda ugu weyn ee howlgalka inay dib ugu laabtaan dhuusamareeb, halkaas oo markaasi iskugu tageen dhammaanba ciidankii la qorsheeyey inay markaasi xoreeyaan inta u dhexeysa Ceelbuur iyo Dhuusamareeb. wararka aan helayno waxa ay intaasi ku darayaan in markaasi ciidanka dhex loo galay oo al-shabaab markaasi ay ku qarxeen meel u dhow deegaanka Laba Dulle, waxaana Dhuusamareeb la gaarsiiyey dhaawacyada askar aan markaasi la shaacin tiradooda. gaadiid dagaal oo toddobaadkii hore Muqdisho laga diray safar dhulka ahna ku tagay Dhuusamareeb iyo hub gaadiid kale oo ay idaarada loogu qaaday Muqdisho ayay wateen ciidanka dib ugu soo laabtay howlgalkii xoreynta Ceelbuur iyo deegaano badan oo markaasi dhaca bariga gobolka Galgaduud oo al-shabaab markaasi iyo xoog ay markaasi ku leeyihiin. dhinaca kale isla wararkaasi aan ku jirnaa xildhibaan Cabdiraxmaan Odway iyo sidoo kaleete jenaraal Saadaq Cumar Xasan Saadaq John oo isna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ayaa markaasi la arkayay in ay magaalada Muqdisho ay ku booqdeen isbitaalada ku yaala qaar ka mid ah askarta kusoo dhaawacantay markaasi dagaalada ka socda gobolka Galgaduud ee Soomaaliya. xildhibaanadan ayaa markaasi ugu tagay dhiirigelin iyo markaas inay garab taagan yihiin in markaas la garab istaago dadkan ciidamada ah ee markaas kusoo dhaawacmay dagaalada markaasi ka socda Galgaduud ee looga soo horjeedo al-shabaab markaasi oo markaa duqeymo culus iyo markaa howlgallo toos ah ayna ku socdaan. sawirada laga soo qaaday baraha bulshada la soo dhigay ayaa la arkay xildhibaan Saadaq John iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Odway oo markaas dhalinyaradan kusoo dhaawacantay dagaalada Galgaduud ka socda ay markaasi u madax salaaxeen ayagoo markaas sheegay inay diyaar u yihiin in markaas ay ka qayb qaataan howlgallada markaasi loogu soo horjeedo dhaqdhaqaaqa al-shabaab. waxaana maalmo lasoo dhaafay lagu eedeynayay inay markaasi qayb keen howlgalladan oo markaasi ay ka cagjideen kana aamuseen maadaama howlgallo culus oo inqimaaysa al-shabaab looga soo horjeedo guud ahaan dalka uu ka socdo. qaybtii dhexe janalkeena ayaa daawanaysaan saaxiibayaal, haddaad nagu cusubtahay subscribe-ka saaro gambalelkana furo sii sheegagalaya saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo kumatiga like inay noo reebaya aad baad mahadsantihiin. markaana wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Muqdisho ka daafur kulan looga hadlayay arrimaha tiroosaadka xukuumadda oo markaasi diiradda lagu saarayay arrimaha garsoorka iyo sidii cadaalad loo heli lahaa dadka Soomaaliyeed. wasaaraha ayaa qiray in dalka ay ka jirto cadaalad la'aan iyo garsoor la'aan, in dadka shacabka ay dhibaato ba'an ku qabaan taa oo sababtay in dad badan oo Soomaaliyeed ay al-shabaab ay markaasi u xukun raadsadaan. ugu dambeyntii waxaa lagu go'aamiyay in markaasi hay'adahaasi la hirgeliyo isla markaana laga shaqeeyo markaasi lagu dhaqo nidaamka markaas iminka ay wax u wadaan ay ka badbaadaan. wararka arrimaha caalamkan waxaa ogaan nin hubaysan ayaa toogasho ku geystay dugsi ku yaala jamhuuriyadda Admiralty ee dalka Ruushka. jamhuuriyadda lagu magacaabo Admiralty ee dalka Ruushka isagoo markaa u dilay markaasi dilay ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan 11 caruur ah. waa toogashadii afraad ee lala beegso dugsiyada waxbarashada ee ka dhaca gobolka markaasi 15 bilood ee la soo dhaafay. guddiga dambaarista ee Ruushka ayaa isniintii sheegtay in ninkan weerarka geystay oo lagu magacaabo Artem Gasestey inay magdayus tahay ilaa 30 jir. Artem ayaa ka qalin jebiyey dugsiga 89 nambarkiisu yahay kaas oo ah dugsi ay dhigtaan arday isku jirta heerka markaasi barbaarinta ilaa dhamaadka dugsiga sare. ninkan hubaysan ayaa toogashada ku dilay 15 qof halka oo goobtaasi ku dhaawacay ilaa 24 qof oo kale oo ay ku jiraan 22 caruur. toogashada iskuulada iyo xarumaha kale ee waxbarashada ee dadweynaha Ruushka iyo jamhuuriyaddiisa hore ee Soviyetka ayaa aad naadir u ahaa ilaa laga soo gaaro tiradii ugu dambeeyay markaas oo tirada toogashooyinka ay kor u kacayeen. gudaha wararka ugu weyn ee Soomaaliya caalamka kala socodsiin janalkeena qaybtan daawata wanaagta hadda nagu soo taasoo subscribe oo gambalelkana furunasi shirkee saaxiibadii meel kasta joogaan inta ku kumatiga like noo reebaya